jacaylku ma yaqaan xuduud, laakiin mararka qaarkood kala duwanaanta dhaqanka waxay ka dhigi kartaa mid adag in la dhiso xiriir. runtii waan ku jeclahay, laakiin ma garanayo si aan u waajaho jacaylkan. waxaan dareemayaa sidaas oo kale. ma rabo inaan ku xumeeyo ama aan wax ka sheego dhaqankaaga. wiilkan iyo gabadhan waxay ka soo kala jeedaan qabiilooyin kala duwan, inkasta oo ay wadaagaan wax badan, haddana waxay leeyihiin caadooyin kala duwan kaasoo caqabad ku noqon kara xiriirkooda. qabiilkaygu waxa uu leeyahay xeerar uu ku qiimeeyaa qof kasta. waxaan leenahay sharciyo adag oo ku saabsan shukaansiga iyo guurka. qabiilkayga waxay aaminsan yihiin hab dabacsan oo cilaaqaadka loo wajaho. waxaannu nahay qalbi furan oo aan ahayn sida dhaqankiinna oo kale. kala duwanaanshahan wuxuu keeni karaa isfaham la'aan, waxaana laga yaabaa in lamaanaha ay ku adkaato inay isu gudbiyaan dareenkooda. ma rabo inaan ku niyad jebiyo ama aan niyad jebiyo qoyskayga. waxay leeyihiin rajooyin gaar ah oo ku saabsan cidda aan guursanayo. ma rabo in aan beddelo qofka aan ahay ama aan ka tanaasulo waxa aan aaminsanahay si aan ula qabsado dhaqankaaga. way adkaan kartaa in laga gudbo khilaafaadkaas, laakiin haddii la helo dulqaad iyo faham, waxaa suurtagal ah in la dhiso xiriir adag. waxaan qabaa inay muhiim tahay in la isbarto dhaqamada iyo hiddaha. waxaa laga yaabaa in aan heli karno hab aan isku dhafno waxa aan aaminsanahay. waan ogolahay. waxaa loo baahan yahay in aynu is-ixtiraamno midba midka kale oo aynu helno meel la wada leeyahay. marka la wada shaqeeyo, lamaanahan waxay abuuri karaan xiriir ixtiraamaya dhaqankooda iyo jacaylka ay isku qabaan labadooda. jacaylku waxa uu leeyahay caqabadihiisa, laakiin marka ay laba qof isu heelan yihiin, wax kasta waa suurtogal.